afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa jawaabada ka bixiyay eedeymo uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye u jeediyay musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sheegay in munaasabadii maalintii shalay lagu qabtay magaalada Hargeysa ee lagu soo bandhigay qorshaha 5 sano ee soo socda aanu ka soo qayb galin isla markaana arintaasi ku sifeeyay mid uu kaga soo horjeedo qarannimada Somaliland. horta waxa weeyaan ciidamadaasi waa waxba kama jiraan oo hal bacaad lagu liseeyay sababtoo ah muuse markii hore ma ahayn isagu wasaaradiisu casuuntay wasaaradda qorshaha keentayna ma ahayn oo gudoomiyaha xisbiga oo musharaxa xisbiga eedo isaga doonayay inuu u soo jeediyo xagasho ayuun bay ka ahayd waxaan leenahay qorshaha xukuumadda ama madaxweynuhu soo dejiyo qorshe wanaagsan ma xuma fulintiisa muuse iyo intii ku hooseysay ee xukuumadda xisbiga kulmiye ku abtirsanaysay baabisay waxba kama jiraan ka dhigtay kankii ka horeeyayna ma fulin kana wax fulaya uma eeka sababtoo markaad rakaabkeeda eegto uu muuse ugu horeeyo gudoomiyadu uu yahay waxay u eeg tahay inay iska tahay jugjug la meeshaada joog horta qaran dumisnimada waxa lagu eedan karayaa waa kiis adag weey qofka qaran dumis qofku eedeynayana waxa weeyaan inuu ka fiirsado oo waxaan qofku ku eedeynayo uu yahay wuxuu hubo ayaa wanaagsan si dhib yar inaad si dadkii la iimaanka maqaaxiis ka fadhiya iska tiraa qaran dumis baad adigoo wali musharax madaxweyne sheeganaya waa arrin disaster weey anigu musharaxayga aan u nisbeyn karayno maaha marka waxaan leenahay isagii bal hadda sheegay qaran dumisnimadiisa taasoo cadeeyo isagoo wali musharax madaxweyne markuu maanta ereyada noocaas kala ku tiraabayo way iska muuqataa inuu fashilay way muuqataa inuu hagi kari laayahay ama uu la daala dhacayo hogaaminta xisbigiisa sidoo kale afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadanaya waxa uu hoosta ka xariiqay in lagu soo martay qaaday munaasabadaasi balse ay salugeen hab maamuuska munaasabadaasi sidaasna aanu gudoomiyaha xisbiga wadani uga qayb gelin xisbiga waa lagu soo martay qaaday laakiin ma u suurta gelin inuu yimaadaan sababtuna wax kale ma aha horaan u nimid munaasabada noocan oo kale ah oo aad u fara badan oo lagu soo martay qaaday xisbiga martiqaadku laakiin waxa mushkilada bartakoolkii xisbiga anu garan muuse wuxuu ka dhawaajinaya inuu yahay gudoomiyihii baarlamaanka wuxuu ka dhawaajinaya inuu yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ugu ballaaran Somaliland wuxuu ka dhawaajinaya inuu yahay musharaxii madaxweynaha xisbiga ee madaxweynaha mustaqbalka waliba noqonaya haddana isagoo intaaba og ayaa marka meesha la isugu yimaado waxa hore u dhacday maanta la dhici lahayd gudoomiyuhu tagi lahaa bartakool xumaanta ay yaqaanaan ay hore u sameyn jireen in noocyo kale u sameeyaan marka wax loo tago ama la aqbalo uma aragna inay tahayba munaasib inay tahay uma aragno kula daaray garanaynin xishmada iyo karaamada uu ka mudan yahay gudoomiyaha baarlamaanku uu ka mudan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani uu ka mudan yahay hadaan garanayn in loo tagaa munaasib ma aha marka protocol xumaantaas tilmaamtay ee gudoomiyuhu jooga maxay aad iyo aad protocol xumaanta waa tan horeba kugu sheegay horena waa u dhacday marka meesha la isugu yimaado saddexda gudoomiyaha xisbi waxa weeyaan madaxweynaha qaranka oo kaliya ayaa ka sareeya ninkan title-kiisu haysto madaxweynaha qaranka oo kaliya ayaa ka sareeya waxa weeyaan waajibkiisu waxa tay xataa wasiirada iska daayo marka ay wada hadalkooda wada dhameystaan in gudoomiyaha la siiyo baarlamaanka oo kelmadiisa ka yiraahdo ma dhacdo isaga lagu soo horeysiyaa kadibna waxay bilaabaan aflagaado iyo eed iyo xagasho dhinaca kalena xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa u soo jeediyay gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye inuu bulshada Somaliland u cadeeyo halka uu ka keenay hanti fara badan oo magaalada Hargeysa uu kaga dhistay buu yiri guriye badan adigu bal hadda waxa isweydiin tutay mujaahidna waa sheeganaysaa ganacsadana ma tiido maktab intaad fadhiisato xoolo maaragtay business oo rugtay lagu arko tijaarta siyaasadda ka faa'iiday ee tijaarta Somaliland ka mid baatay maanta xageed ka keentay xoolaha Cabdiraxmaan Abdullaahi fantastic SAB TV Hargeysa.